عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada lama huraan IT consultancy waa anigoo ah injineer Axmed Xasan Qamaan. waxaan kusoo qaadan doonaa cashirkeena maanta reset Windows 7 password without CD or software. waxaan ku masixi doonaa computerkeena computerkeena passwordka nagu xidhan Windows 7. dad badan baa jira computeradooda password ku xidhan ilaawaan. qaarkood waxaa jira in passwordka iyaga kaga celceliyaan dadna furi waakiisa saxda. marka passwordka aad ilowday ama carruurta kaga celceliyeen wuxuu sabab keeni karaa ama oran karnaa hakad gelin karaa hawlahaagii shaqo ama hawlahaagii jaamacadeed. laba mid waa inaad samaysaa. waa in adigu aad ka furato islamarkaa hawlahaagii islamarkiiba ku kala socdaan, ama waa inaad lacag ka bixisaa ood geysaa meelaha lagu jabiyo passwordada. haddii aad geysin meelaha lagu jabiyo passwordada waxaa kaa lumi doona waqti, lacagna waa kaa bixi. haddaba si aad lacagtaa u badbaadsatid, waqtigaaga qaaligaana aad u badbaadisid, waa in aad si fiican cashirkan u daawataa. cashirkan waxweyn sidee baad u masixi kartaa passwordka computerkaaga adigoo isticmaalaya CD ama software. CD waan isticmaalaynaayo Windows 7 formatting waa inaad haystaa mar walba. CD formatting waa inaad haystaa. markaan ku shubayno halkan installka online baan oranaynaa repair. si fiican baad u daawan doontaan cashirka. note: lama huraan marnaba mas-uulka ma aha waxyaabaha loo geysto dadka. annagu waxaan videogan usoo duubnay oo nagu soo bandhignay in aad idinku lafihiina u anfacdaan. ha u baran asxaabtaada inaad ku jabsatid ee u baro naftaada inaad ku anfacdid. means haddii aad asxaabtaada iyo dadka kale aad ku dhibaataysid oo passwordadooda ka jabsatid computerka, saameyn waxay ku keenaysaa naftaada, cilmigaaga iyo aakhiradaada. waayo qof muslin oo walaalkaaya iska daa muslina hadduu gaal yahay xitaa oon waxba kuu geysan inaad computerkiisa jabsatid ma fiicna. waxa weeyaan waa inaad u barataa cilmiga naftaada ku anfacdid. cashirkeenaan bilaaban doonaa. aad baad mahadsantihiin. la socda cashirka. okay, imika waxaan gelin doonaa passwordkeena oo inoo galay computerka. waad aragtaan saad u jeeteen. okay, restart baan diraynaa. si fiican ula socda cashirka. restart baan u diri doonaa. okay, numberka doontaad taabanaysaa si aad ugu socoto. waxaa nagu jira ajiladii Windows 7 formatting baa nagu jira. haddaad flash boot baladaystiisa okay, adigu inaad mar walba haysto formatting. marka la socda cashirka waa muhiim. okay, next repair. okay, halkaan markaan marayno waxaan dooran doonaa inoo dhameyso. waxaan dooraynaa restore, dhinaxana next. okay, cancel, next,
markaa select system image backup next halkaasaan ku dhufana archive okay install drive okay waxaan computer baan ku dhufan doonaa waxaan dooran doonaa local kan waxweyn kii visual computerkii kana nimka isticmaalayno marka ina waxaan doonaa local diski dhiidan sidan ma doonayno dhiidan ma doonayna waayo computerkaga caadiga wuxuu hadhow noqon doonaa c oo local disk sidan baa sax noqonaya laakiin inagu local disk sidan waxaan isticmaalnaa virtualka computerkeena weeyaan computer saxa maaha waa virtual marka laakiin computerkaga saxa markaad format galinaysi sida ayaad ka saaraysa passwordka folderada iminkaan click siin doono magaca bedeli doono laakiin virtual markaad cashar bixinaysid local disk diidan buu kuu saari doonaa ka caadiga windowska ku jira waa kan windowska weyn laakiin iminka haddaan kan doorano waxba kuma jiro waa virtual laakiin computerkaga saxda sidaad hadhow ka gelaysaa okay local disk dhiidaan dooranay windows baan kasii dooranay windows kadib waxaan ka dooran doonaa system 32 okay waxaan dooran doonaa folderka ku yaalo thc sethc kaasaan magaca ku bedelinaa rename 1 ku qor number 1 okay waxaad tegaysaa cmd folder ku qorantay cmd waka right click copy tana paste tana waxaad ku qoraysaa kii aad magaca ka bedeshay ayaad ku qoraysaa sethc halkii hore 1 baan ka dhignay okay cancel iska dheh restart okay xootaamaysid baad iska daynaysa uu soconaya waxaan ku tusi doonaa computerka oo si free aad u gashay aan password ku weydiinayn okay imka tas gal ma geli kartid sababta aad ku geli karin waa inaad taabataa 5 koor shift 1 2 3 4 5 okay shift was 5 koor taabanaysaa waxaad ku qoraysaa net user okay kan doonana waa kan lama horaan oo halkan lagu qoran oo kala lama horaan okay net user lama horaan star ama xidig enter okay type a password for the user markaad tirahdid enter baad siinaysaa waxba qori maysid enter dhahdaba okay retype the password to confirm waa enter baad oranaysaa bis maxaa ku qoran retype the password to confirm the command completed successful mar hadduu kusoo qoro the command completed successful already waa la receive gariyay passwordkii imika enter iska dheh waxba password baa gelin enter dheh waka password mayna gelin enter uma siiyo imikaas aad baan u galay computerkii aad baan ugu jiraa qabla password hata waxaan ku cadin inuu bila password yahay control panel tag control panel markaad gashay waxaad oranaysaa add remove user dena lama horaan administration click dheh create password imika kuleeyahay password cusub samayso password noo nagu xidhnaa okay marka waxay nagu dhamaaday asharkeeni ahayd passwordkaaga sidee ayaad u masaxaysaa windows 7 waa anigoo engineer axmed xasan qamaan waxay naga tegay sidaa iyo asalaamu calaykum
waraxmatullaahi wabarakaatu.